guurku diintu waa u gargaar, shaydaanku waa u gablan iyo hoog, waana gaashaanka adag oo cadowga eeba laga galo, waxaana ku badata ummadda islaamka si ay ula tartanto ummadaha kale. Eeba waxa uu aayadihiisa qur-aanka ku leeyahay: u guuriya xaslaawayaasha idinka mid ah iyo addoomihiina kuwooda wanaagsan, rag iyo dumarba, hadday sabool yihiin, eeba asagaa deeqdiisa ku hodmiya. Eeba waa kii deeqdiisa dadka ku wada aado, cid walbana duruufteeda ka warqaba. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxaa laga wariyey inuu yidhi: isguursada oo tarma, ummadaha ayaa idinku faanaya maalinta qiyaame. Ibnu Mascuud allaha ka raali noqday waxa uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka wariyey inuu yidhi: ninkii awoodaa ha guursado, maxaa yeelay guurka araggu waa u dabool, ibtuna waa u gaashaan. Ninkaan awoodi karinse ha soomo, soonka kacsiga ka baabi'inaya. Kusoo dhawaada daawadayaal barnaamij aan ugu magac darnay raaxada guurka. Muuqaalkan wuxuu hordhac u noqon doonaa barnaamijka raaxada guurka. Daawasho wacan qaybta koowaad ee barnaamijka. Magacaygu waa Cabdirashiid Maxamed, halkanna waa Ceeblaawa Media. Muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa faa'iidooyinka guurka. Guurku waxa uu leeyahay 5 faa'iido oo kala ah: 1. Ubad ha ka haro. Faa'iidooyinka guurka tan ugu horeysa waa sidii lagu heli lahaa ubad si aanay taranka dadku u dabar go'in. Ubad dhalistu waa inay yeelataa 4 ujeedo oo kala ah: inaad ku doontid raalnimada eebe, maadaama aad gacan ka geysatid siday taranka dadku u sii socon lahaa; inaad ku doontid raalnimada rasuulka sallallahu calayhi wasallam kol haddaad ku kaalmeynaysid siduu ummadaha kale tirada ummadiisa uga faani lahaa; in eebe ku siiyo awlaad khayr qaba oo kuu soo duceeya kolka aad dhimato; inaad ku doontid shafeeco kolka ilmo yari kaa saqiiro. 2. Dhufays adag oo aad ka gashid shaydaanka. Guurku waxa uu kaa oodayaa meeluhu shaydaanka kaa soo galayay, mar hadday wuxuu xaaraan ku raadi ku lahaa rugtaada ku yaalaan iyagoo xalaal ah. Qofka hadduusan eebe ka cabsi iyo iimaan ku hubaysnayn, rabitaankiisa kacsi ayaa horkaca. Haddii markaasu aanu jirin guur xalaal ah, siduu dembi isaga ilaaliyo way adag tahay. 3. Qalbiga oo kuu dega iyo laabta oo kuu qabowda. Shaqatay nafta u jeceshahay haddaan loo yeelin waqti nasasho, waa lagu daalayaa, dabadeedna la iska daynayaa. Haddaba maxaad ka oran lahayd hadday shaqadaasi tahay taqwada eebe oo iyada iyo naftuba isdiidayaan? Saacadaha uu ninku hoolan yahay cibaadada Allah iyo camalka adduunyo, waxaa habboon inuu dhex gashto waqti uu xaaskiisa kula baashaalo, si uu qalbiga uga dego, laabtana ugu qabowdo, firfircoonina ugu qaado. 4. Hawsha guriga oo hoggaankeeda kaa wareego. Ninka oo ka xorooba maamulka guriga, sida hagaajintiisa, xaaqistiisa, goglistiisa, cunto karinta iyo diyaarinta alaab dhaqista, suuqa soo adeega iyo wixii la mid ah. Taasi waxay siisaa waqti dheeraad ah oo uu ku shaqaysto, waxna ku barto, eebana ku caabudo. Rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam waxa uu xadiis uu soo saaray Tirmidhi ku leeyahay: midkiin ha yeesho qalbi eebe ku mahadin og, carab eebe xusid badan, iyo habeenay mu'minad suuban ah oo aakhiradiisa ku kaalmaysa. Haddaba dumarka looma guursado oo qura in adduunyada lagu raaxaysto, carruurna laga daadiyo, balse yoolka ugu muhiimsan waxa weeye inay ku abuuraan waqti iyo jawi aad eebe ku caabudid. 5. Nafta oo aad ku tababartid qaadista mas'uuliyadda reerka, daryeelkiisa, gudashada waajibaadka ka saaran xaaskaaga, dabeecadaheeda oo aad u samirtid, dhib wixii kaaga yimaada oo aad u dulqaadatid, hanuuninteeda oo aad u howlgashid, dadaal aad u gasho masruuf iyo marasho xalaal ah sidaad ugu keeni lahayd, carruurta oo aad ku tababartid wadada toosan iyo wixii la mid ah. Waxaas oo dhammi waxa ay ka mid yihiin faa'iidooyinka guurka, tiyo waliba ajar iyo xasanaad eebe kaa siinayo. Nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam waxa uu xadiis ku leeyahay: war hooya, gabigiin waxaad tihiin mas-uul walbana waxa uu mas-uul ka yahay wixii la raaciyey. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkeena maanta. Intaa ku kulmeyna muuqaalka xiga, sidaa iyo nabadgelyo.